Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaaleyga qaaliga ah dhammaantiin waa idin salaami meel walbo adduunka aad ka joogtaano ramadaan kariim soonki maasha allah 10 maalin oo maanta noo marayaa insha allah 20ka dhimanna anagoo caafimaad qabno aan dhammaysanayna insha allah ilaahay taasaan ka baryayaa inta xanuunsan allaha caafiyo inta muraad kale muraadkooda allaha u sahlo dad waxaa jiro oo soonkii hore nala soomeen oo soonka hadda nala soomeen oo qabri ku jiro ayagana allaha u naxariisto waalidiinteena allaha u naxariisto qof walbo maanta meeluu ka ooman yahay allaha ka oontiro marka intaas kadib qisadii noo bilaabaa qisada sidaan ayay magaceeda waxaa waaye waalidkii wiilkooda isbitaalka uga tagay ama hooyadii wiilkeeda isbitaalka uga tagtay markay dhashay isbitaalka ku dhashay uga tagtay qisada saan ayay ku bilaabanaysaa nin naag ayaa jiro isqabaano naagtii uur yeelatay ama haweeneydii uur yeelatay uurka markay yeelatay ilaa 5 bil markii la soo gaaray waxaa la ogaaday cunuga ee wado inuu xanuunsan yahay cunug caafimaad qaba uusan ahaynin marka dhaqaatiirtu waxay ku dhaheen cunug caafimaad qaba ma ahan ee hadda intuu yar yahay iska soo dil mayay tir cunugeyga ma dilaayo waan dhalaa marka maamada iyo odaygaba faqiirin waaye wax ma haystaan waa dad qutulyoonkooda la dagaalamo adaal camuum uurkii 9 bilood u dhamaatay isbitaalkii maalintii dambe foolaa qabatay isbitaalkii la geeyay way dhashay markay dhashay cunug xanuunsan ee dhashay waxay dhaqaatiirta sheegayaan run waay inta cunugii la carcararaay xanuunsanaay marka way ka dhuumatay isbitaalka ayadii ninkeedu waxay isku afgarteen inay isbitaalka ugu dhuuntaan cunug xanuunsan maadaama ayna awood u lahaynin ayna dhakhtarna geey karin marka way ka dhuunteen markay ka dhuunteen isbitaalka ugu dhuunteen wiilkii ciidaa la siiyay cidii qaliin ay ku sameeyeen wadnuhu ka xanuunsanaa qaliin ay ku sameeyeen dhaqaatiir daba socoto daawo la siinaa hada ilaa 2 sano cidii haayeen waxay dhaheen intaan ka badan ma hayn karno anaga way iska soo wareejiyeen kambaniga ilmaha oo xuquuqda ilmaha u dooda lagu soo wareejiyay isla markii cid kale hadana qaadatay cid kale qaadan doonto marka waa cid taajiriin ah dhakhtar walba geeyeen America la geeyay qaliin loogu soo sameeyay markii dambe wuu fiicnaaday wiilkii wuu wareystay iskuul aaday waxaa lagu koriyay xayaatada ay ka macdahay wiilkii iskool dhigtay sida normalka ee dadka ee dugsi sare u dhameeyay jaamacadu aaday mutacallim uu noqday markii dambe gabar oo bartay intuu jaamacada oo dhiganayay wuxuu ugu sheekeeyay qishadiisa wuxuu ku yiri aniga hooyaday iyo aabahay maxay ahaayeen ba aqaani ciidan way soo korsadeen marka gabadhii waxay tiri anaa kula raadinayo gabadhii wiilkii way isjeclaadeen gabadhii wuu guursaday 2 ilmood ay u dhashay waxa waaye cid ila intaas way raadinayeen markii dambe way heleen waxaa loo sheegay meesha ay degan tahay hooyadiis iyo aabiis meesha degan yihiin walina isqabaano marka uu soo raadshay wuu u imaaday hooyadii marka uu imaado ku yiri aniga waxaan ahay wiilkayga isbitaalka ugu soo tagaysay hooyadii maxay ugu jawaabtay ma dhimanin miya adiga ma nooshahayn ma ku farxinbo marka hooyada wiilkan markuu 18 muu jiro ma aqaan meelahaas amal ilaa 18 sano 17 sano meelahaas amal maysan dhalin kadib waxay dhashay gabar caafimaad qabtay markaas dhashay waxay istiri ilmo caafimaad qaba dhashay hadda cunug kala bal raadi 2 sano kadib hadana wiilay dhaleen wiilkii wiil xanuunsan oo noqday asagane markaan ma ka cararin marka wiilkooda way haysteen gabadhoodii oo caafimaad qabtay ilaa 13 sano maalinta 13 sano lugta ka bixisay gabadhiina jirrada ku soo booday jirro aaba laga aqoonina ku dhacday gabadhii ayadana sidoo kale gaari ku fadhisaa hadda 16 sano ay jirtaa gabadhii mis 17 meelaas ay jirtaa gabadhii yareed marka waa la weydiiyay waxay dooratay walaalkii marka wuxuu sameeyay hooyadii aabii wuxuu yiri idin caawiyo dhaqaale idin ku caawiyo way ka diideen ilmahan idin ka wado ana shaqaale u qabanayo xayaato ma ay ku noolaanayaan dhaqaatiir fiican aan geeyna way ka diideen markii dambe maxkamaddu ka soo dacweeyay wuxuu yiri aniga walaalahay way dayacan yihiin cidaan hadda ka hor aniga isbitaalka iiga dhunteen hadda labadan ilmoodne inaan kala wareegan rabaa hooyada marka waxay tiri guriga aan deganahay guri oo dawladda leedahay waaye wiish ma lahan jaran jaro waaye ilmihiina gaariya lagu wadaa gaarigana jaran jaro lagama dejin karo
marka gabadhii yareeda la weydiiyay yaa rabtaa la yiri waxay tiri ani gurigeena jaranjaro ma lahan marka walaalkeen rabaa xayaatada ku noolayaan soo arkay xayaatada aan jecelahay waaye maxkamadii marka waxay go'aamisay maadaama uu wiilka la soo kontrolo gurigiisa iyo noloshiisa oo cida nolosha ku noolyihiin la soo arkay ilmihii in lagu wareejiyo walaalkood laakiin hooyada ee maalin walba u tagayso ee korkaas ka ogaanayso maadaama ay guri kale ayna dagi karin oo isan guriga ka guuri karin gurigan ya Allah ku heleen bawli kooro marka qisadii intaas ku dhamaatay wiilkii waxa lagu wareejiyay ilmihii hooyadii waxa la yiri ma hayn kartid waayeela tahay asanin dhalinyaro ah marka haydin caawiyo ongolaada la dhahay qisadii intaas ku dhamaatay please kanaalkayga daa ka heshay subscribe like comment dhiirigelinta waa xaqiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.